السلام عليكم كسو dhawaada channelkeena Koryal fadlan hadaadan kamid ahayn asxaabta channelka waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad subscribe saadho mahadsanidin bilyaneerada maanta ee adduunka ku nool sida Mark Zuckerberg, Bill Gates, Jeff Bezos dhamaantood waxay ka sameeyeen in lacagtooda ka sameeyeen tiknoolajiyada waxaana xog baaris la sameeyay lagu soo ogaaday in sagaalka qof ee adduunka ugu taajirsan ay ka lacag badan yihiin kana hanti badan yihiin 4 bilyan oo qof ee adduunka ugu faqrisan waxa laga yaabaa inay ku fajac geliso balse dhaqaalaha ay haystaan marka loo barbardhigo mid ka mid ah dadkii ugu hantida badnaa taariikhda oo ahaa Mansa Musa waxa uu ahaa boqor ka taliya wadankaasi hadda loo yaqaano Mali magaca Mansa Musa waxa laga wadaa muusihii boqorka ahaa ama muusihii weynaa Mansa Musa waxa uu noolaa qarniga 14aad taariikhyahanaduna waxay sheegaan in Mansa Musa uusan ka dhalan boqortooyada balse uu ahaa ku xigeen waxa uu xilka la wareegay markii boqorkii xilligaas talinayay ee ka talinayay Mali uu u baxay safar xajka ah balse dib u dambe uusan u soo laaban waxaana xilka la wareegay Mansa Musa markii uu Mansa Musa xilka la wareegay waa 1312 waxay ahayd xilli reer Yurubku dhibaatooyin fara badan oo cudurrada ka mid yihiin iyo tirada dadka oo aad u yaraanaysa siyaasad xumo iyo sidoo kale abaaro isdaba jooga ay haysteen xilligan waxay nasiib u yeelatay waqooyiga Afrika inay xarun u noqoto ganacsiga caalamka ka socda gaar ahaan Mali oo Mansa Musa xilka la wareegay xilligaas nama dhihi karo Musa inuu ahaa nin nasiib badan sidoo kalena Mali waxay ahayd wadan hodan ah oo cusbada iyo dahabka leh taas oo ka faa'iideystay waxa uu bilaabay inuu ganacsigiisa ku baahiyo Aasiya sidoo kalena dahabka u iibgeeyo Aasiya iyo Afrika inteeda kale xarunna waxa uu ahayd Timbuktu ilaa maantana cusbada ama milixda waa laga dhoofiyaa Timbuktu Mali waxa uu ku fikiray Mansa Musa inuu sameeyo goob aan ka noqota Timbuktu waxa uu qorsheeyay dhismaha masjid weyn ee Jen waxa uu masjidkan ka sameeyay walax la yiraahdo Adobe oo ah ciid iyo qamadiga laamihiisa isku jira ama isku qasan waxaana naqshadeeyay architecture ama engineero aan caadi ahayn haatanna waa standismeedka ugu muhiimsan wadankaasi Mali waxa dhismahaas ka qayb qaatay engineero laga keenay daafaha dunida oo ay ka mid tahay wadankaasi Spain ilaa markii dambe lagu daray xarumaha hidaha ee loo yaqaano World Heritage Centerka UNESCO boqor Musa oo ka faa'iideysanaya fursadihiisa iyo awoodihiisa dhaqaale ayaa waxa uu isku balaariyay dhul badan oo waqooyiga Afrika ka mid tahay hadda loo yaqaano Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea, Burkina Faso, Nigeria, Mali iyo sidoo kale Chad. Waxa xusid mudan in dhulkaas uu ka talinayay 25 sano kaliya. Deegaamadaasna inta badan si mutadawacnimo ayay ugu soo biireen maadaama ay intooda badan dhaqaalahooda uu Muuse kor u qaadi jiray. Sidoo kale haddii ay dagaal timaadana Muuse ma uusan ahayn mid ka waabanaya dagaalka waxaana qabsaday ilaa 14 magaalo oo muhiim ah waxaana xusid mudan in Mansa Musa weligiis ku kuldaraysan wax dagaal ah balse sanadkii 1324 ayaa magaciisa kor u qaadmay awoodiisa dhaqaalena la ogaanaya markii uu go'aansaday inuu soo baxo dhankaas Makka si uu u guto waajibaadkiisa diiniga ah ee xajka safarkii ugu dheeraa abid oo nin boqor ah ku safro hanti iyo awood ciidanba waxay masaafadu dhamayd ilaa 4000 oo mayl ku dhawaad 5000 oo kiiloomitir waxaana safarka ku weeriyay ilaa 6000 oo askari ku hubeysan xirina dhar nooca xiriirta kamid ah oo adag sidoo kale waxa la socday ilaa 12000 oo adoon kuwaasoo midkiiba uu xambaarsanaa dahab dhan 8 kilogram waxay sidoo kale wateen sahaydii dadka iyo kuwii gaadiidka ay wateen oo ahaa 80 geel ah kuwaasoo midkiiba xambaarsan yahay 500 ilaa 300 oo pound oo dahab ah waxa uu dahabkaasi u qaybiyay masaakiinta uu jidka kula kulmay waxay taariikhyahanadu soo wariyeen in Mansa Musa uu dhisi jiray masjid jimca kastaba intii uu safarka ku jiray waxa la sheegay in Mansa Musa la kulmi jiray madaxda magaalooyinka uu sii mari jiray waxaana xilligaas codsi u soo tirsaday amiirkii Masar ka talinayay waana ka diiday Mansa Musa inuu la kulmo waxaana inta badan ku marmarsiyoon jiray inuu leeyahay ujeedo kale oo ah inuu soo xajiyo balse uusan u socon la kulanka madaxeed waxa kale oo xusid mudan in amiirkaas markii la kulmayo cagta laga dhunkan jiray taasoo Musa aad iskala weynaa inkastoo ay ugu dambeyntii kulmeen oo diiday Mansa Musa inuu dhunkado cagta amiirkaasi sida caadada ahayd taasoo hadal hayn fara badan dhalisay aakhirkiina labada mas'uul waxa ay wadaageen sheeko dheer ugu dambeyntiina waxay noqdeen xulufo safarkii diiniga ahaa waxa uu Musa ku dhaxlay inuu la sameeyo xulufo adag madaxda dhulkii uu soo maray sidoo kalena dhaqaale badan oo dahab ugu badan yahay galiyo suuqooda waxayna taariikhyahanadu sheegaan in magaalooyinka waaweynaa uu sii maray oo ay ka mid tahay Qaahira, Madiina iyo Makka qiimihii dahabka aad u dhacay 10 sano isku xigta intuu cibaadadiisa sii watay xajkiisina gudanayay ayaa waxa loo sheegay in dawladdiisu la wareegtay magaalada Gaal
waxay ahayd magaalo istiraatiijig ah sidoo kalena waxay ahayd magaalo ganacsi fiican leh iyo dhaqaale wanaagsan muusena waxa uu soo booqday magaaladaas waxaana la guddoonsiiyey markii uu yimaaday muuse labadii wiil ee boqorkii gaal Ali Kalaan iyo Sulaymaan Naar waxaanu muuse hore u soo kaxaystay safarkiisii markuu ka soo laabanayay xajka injineero aqoon-yahano fara badan waxaanu aasaasay jaamacaddii ugu weyneyd Timbuktu waxaana ka bilaabay xisaabta cilmul falaka iyo saadaalinta taasoo isku keentay culimmadii muslimiinta iyo aqoon-yahanadii meel kastoo dunida ka joogeen ilaa haddana Asanko University way dhisan tahay waxaana laga heli karaa buugta ugu badan maktabad oo kor u dhaafaysa ilaa 1 milyan oo buug waxa uu soo jiitay Muuse indhaha dunida kale markii sawirkiisa laga dhex arkay ama ay ka soo dhex muuqatay khariidadii kaliya ee caalamka qarnigaas taasoo ahay Catalan Atlas taasoo u soo jiitay indhaha reer galbeedka oo hunguri ka galay hantidiisan aan tirada lahayn waxaan ku bilaabay duulaankii ugu horeeyay dowladda Boortaqiiska oo ku soo duushay xeebaha galbeedka Afrika 1444 inkastoo ay dowladdii Maali xilligaas si fiican isaga difaacday laakiinse kuma aysan guulaysan oo Boortaqiisku waxa uu la wareegay intii xeebta ahayd aakhirkiina waxa uu ka qayb qaatay cunaqabatayn uu kaga jaray dunidii kale aakhirkiina waxa Maaligii gumaystay Faransiiska waxaana ku sameeyay dhaqaale xumo aad u liidata waxa lagu qiyaasaa in sanadkii uu sameeyo qofka Maaliiska ahi lacag ka yar $700 waana wax aad looga xumaado marka loo eego heerkii uu gaarsiiyay Mansa Musa dhaqan aqoon iyo diin ahaanba waxay Maali maraysaa heer luqadda caadiga ah lagaga hadlo ay tahay Faransiiska Mansa Musa waxa hantidiisa lagu qiyaasaa isku celcelin lacag gaaraysa $400 bilyan oo dollarka Mareykanka ah run ahaantii waxa uu noqonayaa ninka ugu hantida badan adduunka maanta waan joognana waxa la sheegaa in ninka ugu taajirsan yahay Jeff Bezos mulkiilaha shirkadda Amazon waxaana lagu qiyaasaa hantidiisa ilaa $190 bilyan waxaana ku soo xiga Bill Gates iyo Warren Buffett oo iyaguna midkiiba leeyahay ilaa $90 bilyan haddii la isku geeyo saddexdaas bilyaneer lacagtoodu marnaba ma gaaraan inta uu haystay Mansa Musa waxa alla ilaahay u soo dhawaaday hanti ahaan ninkii la oran jiray John Rockefeller kaasoo ka ganacsan jiray shidaalka Mareykanka isagana waxa hantidiisa lagu qiyaasaa inay dhamayd $340 bilyan oo dollar welina uma dhawa intii Mansa Musa sameeyay waxa la dhihi karaa Musa weli cid u soo dhawaata hantidiisa ma jirto 700 sano ka bacdi geeridiisa waxa uu yahay weli ninka ugu taajirsan taariikhda adduunka abid waxaan soo gudbin doonaa muuqaalo cajiib ah oo aan si fiican u diyaariyay fadlan ha ilmaamin inaad subscribe tiraahdo channelkeena sidoo kalena aad ayaad u mahadsan tahay